بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين بأمير البادوني ذا كجوكتر waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dunida iyo haatan qodobada ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo waxa kamida madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo goordhow weerar afka ku qaaday madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron muxuu ka yiri barnaamijkaad ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo maxay tahay sababta mar walba ugu baaqsanayo madaxweyne Donald Trump dagaal toos ah oo mar kale lagu qaado wadanka Iran walwalka gudaha wadanka Mareykanka ka haysta ayaa si kordhaya madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump walwalkaasi muxuu yahay barnaamijka ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo isla qaar kamid ah wadamada khaliijka oo si weyn uga carooday hadal ay jeediyeen ama fariin ay gaarsiiyeen madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo wadamada khaliijku qaar kamid ah inay kala guuraan ay qarku u saarantahay kuwaasi waa kuwa barnaamijka ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran iyo ciidanka badda ee wadanka Mareykanka oo dagaal toos ah ku dhexmaray meel u dhow gacanka Hormuz waa sida xaaladda barnaamijka ayaad ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo dhinaca kale dawladda wadanka Iran gaar ahaan madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian oo goordhow hadlayna muxuu ka hadlay barnaamijka ayaad ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo gudaha dhulka xoog lagu haysto oo caawa lagu kala cararay ka gadal markii meel walba siriga uu ka dhawaaqay maxay tahay walwalkaas iyo gantaaladaas xagee ka yimaadeen xogaga reer Lebanon oo iyaguna goobaha dagaalka uu cadara ka dhigay barnaamijka ayaad ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo aad u mahadsantiin soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysay fadlan kanaalkeena soo booqato subscribe tan la dhaafin muuqaalka share garay la wadaag saaxiibadaada oo aragtidaada ka dhiibe soo dhawaada mar kale wagaag aanu nimaadno markii ugu horeysa madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa goordhow hadlay wuxuu leeyahay mar dhow waxaad arki doontaan buu leeyahay qaar kamid ah wadamada reer galbeedka tusaalaha Faransiisku wuxuu leeyahay waxay rabtaa buu yiri in marka Iran ay heshiis la saxiixato ayay rabtaa iyadoo annaga nacag marayso leeyahay marka dawladihii wadamada ku leeyahay galbeedka oo dhan waxay diyaar u yihiin buu leeyahay inay isu dhiibaan dawladda wadanka Iran waxaad arki doontaan buu leeyahay mar dhow bal Faransiisku wuxuu leeyahay wuxuu qorsheynayaa inuu la gaaro dawladda wadanka Iran heshiis buuxa kaas oo ka dhana marka wuxuu leeyahay sideen xulufo ku ahaan karnaa nin wadanka Iran oo aniga hadda dagaalka aragtan igula jira mar walba heshiis la gaaray bal wuxuu ku eedanaya xitaa Faransiisku inuu si weyn u taageerayo dawladda wadanka Iran Trump marka waxaan marka wax jirmiya sadar leeyahay marka qaar waxa la wariyaa inay tahay taatiko u dawladda wadanka Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu markaas ku bajiyo madaxda wadamada reer galbeedka marka arayta hal marka wuxuu leeyahay Faransiiska iyo Iran waa heshiiyeen Mareykanka inay u heshiiyeen qorshe annagana la ka soo horjeeday wadaan annagana waa u jeedna talaabaan ka qaadi doona ayuu leeyahay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump wagaag waan arki doona warar kale waxay ku soo kordho waan idin la wadaagi doona hadii alla ka dhigo laakiin ciidanka ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran iyo ciidanka badda ee wadanka Mareykanka ayaa isku farasaaray meel aanay sidaas uga fogeyn gacanka Oman dabcan waxay sameeyeen ciidanka wadanka Mareykanka maraakiib yaani oo ganacsi oo shidaal oo Imaaraadka Carabta iyo nimanka Carbeed laga leeyahay ay ku soo daba dhuumanayaan marka waxay rabaan gacanka Hormuz mar inay u soo dhawaadaan Iran filinkaas ciidankeeda si fiican ayuu u socdaa marka markab kasta oo Iran gacanka Hormuz iyo Iran dabcan maraakiib aad u tiro badan baa dhooban ilaa 40 ilaa male boqolaal maraakiib oo caalami ah oo dunida inteeda kale u kala socda ayaa halkaas dhooban marka markab kasto soo gala marka Iran fariin bay u diraysaa waxay leedahay markabkaas yaala iyo waxay ku sameynaysaa waxa hataa jooga maraakiib badan oo maamulka gumeystaha Israa'iil xiriir la leh ayaa meesha fadhiyo kuwa Mareykanka xiriir la ayaa fadhiya dhamaantood waxay rabaan marka gacanka Hormuz inay gudbaan si ay badaha kale ee caalamka u gaaraan marka Iran marka waxa la leeyahay waxa ma qorto maraakiibtii bay kala shaareynaysaa badagos markabkan inta ka tan ayaa saaran qaarkood waxay gusidaan 3 milyan oo fuust oo shidaal ayay sidaan qaar 4 milyan bay wadaan qaar 5 milyan bay wadaan qaar badeecay kala ayaa ku raran qaar gaas baa ku raran wadamada reer galbeedka ku socday oo aad waliba baahi looga qabo laakiin Mareykanka marka waxa la leeyahay wali waxa uu isku dayayaa madaxweyne Donald Trump khiyaamo in lagu sameeyo ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran malaha marka ciidanka Iran markab kasta oo meesha soo maray ishay ku hayaan waxay leeyahay markabkaas yaa kule xageed u socotaa haduu markab is adkayo marka waa la dab saaraya dhowr markab ayaa hadda holacaya ayaa yaala meel u dhow gacanka Hormuz ciidanka Mareykanka marka waxay isku dayeen marka maraakiibtaas inay caawiyaan oo ay Hormuz xoog ku soo galaan isla markiiba diyaarado drones inta lagu kiciyay ayaa hadana gantaalo roobta looga dhigay dabadeedna waxa laga dulkeeyay markiiba doomo isqarxiya ayaa sidoo kale to markiiba loo diray marka
haddee maraakiibtii maraykanka marka waxaa laleeyahay dhif iyo naadir bay noqotay xataa inay u soo dhowaadaan gacanka hormus maxaa yeelay doomo dheeraynaya isqarxinaya oo hubaysan iyo diyaarado dronis ah yacni halka mar oo iiraan maraakiibtaasu ay weerarto ama ay isku dayaan xataa inay weerar sameeyaan ama xerar talaar sameeyaan markabka waxaa isagaaba yaabanbe gantaal ku soo socda iyo diyaarado dronis iyo doom yani iiraan halka mar waxay qaadaa weerar 3 jaha ayay qaadaa diyaarado dronis oo ciid ka badan oo markabka lagu fasaxo intaas marka lagu fasaxo haddana gantaala laga dabageeya intaas looga mahara doomo dheeraya haddana loo diro oo markiiba markabka shukub leh oo qarxinaya markabka marka ma diyaaradii dronis kula dagaalama ma gantaaladii buu iska dhiciyaa ma doomahan isqarxinayo ku soo socdo iska dhiciyaa ma kuwa miinooyinka hoostiisa bal iiraan xitaa hadda waxay bilowday sida la leeyahay inay adeegsato gantaalo ilaa 500 oo kilomitir oo biyaha hoostooda maraya oo qaarkood si 750 la yiraahdo oo laga keenay wadanka Shiinaha marka waxaa la leeyahay marka ciidankii Mareykanka 48 saac la soo dhaafay ilaa 5 mar ayay sameeyeen isku day weerar oo ay ku weerarayaan gudaha wadanka Iiraan gaar ahaan gacanka Hormuz nin sarkaal ah oo ama khabiir aan iraahday oo telefishinka u waramay RT la yiraahdo wuxuu leeyahay Iiraan inta ay gacanka Hormuz haysato waxa uu leeyahay nuclear option bay haysataa buu leeyahay Mareykanka warku wuxuu rabaa inuu Iiraan ka farmoojiyo gacanka Hormuz oo uu shaqeeyo barnaamijka la yiraahdo yani al-hurriya iyo al-bahr yani hurriyada mashruuca la yiraahdo ahraarul bahr ama xuraynta badda ama xurriyada badda marka waxa ma shaqeynaya Iiraan Hormuz waxay u ilaashanaysaa si qeyrul caadiya dhinaca kale Iiraan waxay waa socdaan maraakiibteedu waa marayaan kuwa shidaalka jeena u socda kuwa Russia u socda si caadi ah weeye inta badan maraakiibtu ay dawladda wadanka Mareykanka cunaqabataynayso ay rafaasanayso waa maraakiibta shirkado gaar ah ay leeyihiin laakiin markab shidaal wado oo dawladda wadanka Ruushku ay leedahay de Mareykanka kuma taabanayo markab shidaal sida oo dawladda wadanka Shiinaha ay leedahay ma taabanayo laakiin waxaaba la sircinay waa dadkan ganacsatada shirkadaha insurance iyo shirkadaha maraakiibta la iyo waxaas way laakiin Iiraan maraakiib ay leedahay oo shidaal wada Mareykanka uma dhawaan karo haduu u dhawaado isaguna inta leedahay u maqan dhowr markab oo dawladda wadanka Mareykanka ay qabsatay intii kamida looga haystaa marka waxa la leeyahay ciidankii Mareykanka ee la rabay in gacanka Hormuz ay furaan gacmay taagteen baa la leeyahay marka waa sheeko cajiib ah marka waxa la leeyahay Iiraan talaabada dhankeeda loo qaaday waa la qoomameysadada la leeyahay marka bal ay iska daayeen wadamada Carabta Bahrain iyo Kuwait iyo hadii laba ku roon yahay waxaas oo dhan waxa weeye ilaalay ka haysaa wadanka Bahrain hadii aynu eegnana horta waa idin sheegay hadda kor waan idin la wadaagay Bahrain iyo Imaaraadka Carabta iyo Kuwait nimankaas wadamadaas ma sii jiri doonaan biidin ilaa maxaa yeelay baarlamaanka wadanka Bahrain waxay ruqsadii iyo xildhibaanimadii iyo jinsiyadii bay ka qaadeen 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka waxa lagu sheego ee wadanka la yiraahdo Bahrain waa jasiirad weeye 160 kilomitir ba Iiraan u jirtaa meelihii ay dawladda wadanka Iiraan sida naxariis darada u duqeysan way ka mid tahay maxaa yeelay waa meeshii kali ah oo Mareykanku islaha halkaas ku dhow oo ka weerari karta ayay ahayd Iiraan waa hore ka tashaday waa iska ooday halkaas waa la awday ma aha cubka ka dhigtay Iiraan saddexda marka xildhibaan baarlamaankii baa la fariisiyay oo 100 dhowr baan u maleynay fadhiyeen iyo 96 ma aqaan saddex xildhibaana xilka laga qaaday oo kalsoonida laga laabtay oo xasaanadii laga qaaday intaas kali loogama ekaanana xildhibaanadaas waxa lagu sameeyay xataa jinsiyadii laga laabtay sababtu maxay tahay waxa lagu leeyahay waxay ka daba yimaadeen dad Bahrain ay qabatay Bahrain dabcan shacabka meesha degan jasiiradda Bahrain horta 90% waa Shiico Iiraan bayna ku xiran yihiin kuwa jawaasiista ah ee Israa'iil iyo Mareykanka u shaqeynayna Sunni bay sheegtaan laakiin waa munaafiqiin iyaguna sidaas daraadeed marka dhibaatada jirta marka waxay tahay sida la leeyahay nimankan maadaama ay Sunniyiin sheegtaan ay jawaasiista ah ee boqor isku sheega ah ee wadanka maamulaya de shacabkan 80% waa Iiraan bay la safan yihiin markaas ay maalin walba dhalinyaro soo qabtaan Iiraan baa lagu eedeynaya ilaalada kacaanka ee xiriir la leeyahay waxaas xildhibaanada marka waxaas ka caroodeen waxay raadeen ruuxaas ma jiraan dadkan waa dad u dhashay reer Bahrain weeye hadii dambi lagu haray dambiga lagu qaado laakiin عندي لسه حراب إيران بحر الله لا كان إيران بحر الله لا شعب كإيران يودرت كيانا عاين ورد كان عند دفاع عنه خوف كي الدم بقى الدم بيجي سلقوا قاضي أنا عاين ورد الشعب كسنة اللي قد أيوه نبغر كبر سر الشيطان وموقتها يسكوف وانا جسيرد وحو مركا وعلى ليه سدح اللي بانا يا انت برامك اللي جاي كرسولين اللي قال لابتي اي الجنسيات دي لقى قاضي مركا ما لم يقدم بيين وحوي برامج كاس وكنت لجرتي مركا Bahrain iyo Imaaraadka Carabta iyo Kuwait iyagu waxay go'aansadeen in si rasmi ah ay dagaal ka dhan ah dawladda wadankeena inay u cilaansadaan wixii dhaaba ha dhaceeno marka
marka qaar markuu waxa leeyahay waxaan wax iyagu ka yimaaday ma aha bal Bahrain waa jasiirad laba gantaalo dawladda wadanka Iran soo tuurtay baa ku filan ayagoo dhan inkastoo Iran aan duqeynayna dabcan laakiin meelaha cadowgu degan yahayo Mareykanka iyo Israa'iil iyo markaas ay duqeysaa laakiin laba gantaal baa ku filan bal ay madaxtooyada hadii dukum laga rabo yani waxa tusaale ah waa qof curyaan ah oo dhigala oo cagala oo indla oo hadina dil kuga hanjabay ka warbal adigoo yani gaari magaras Cabdibila oo boqol wiil ay afarta kor ka saaran yihiin ilaa 30 wiil ay saaran yihiin haysta duu ku hanjabayo qof dhigala oo lugula oo indla haduu kule dil kuga hanjabayo waliba hada lagu male oo indha male oo dhiga male haduu wuxuu kule yahay ama ka soo qaad dhigu leeyahay laakiin caga male oo indha male haye waan curyaan barta soo fadhiya waa ku hanjabayo ku dilaya buu kuleeyahay waa mustaxiil ma ogtahay marka nimanka marka waa lamid Kuwait hadda koorde waa la socota Kuwait xitaa waxa soo dhan waxay kaga jilicsan tahay 250 kun oo askari wax ku dhow oo Iran taabacsan ayaa jooga wadanka la yiraahdo Iraq marka Iraq Urdun iyo Kuwait waa ka jilicsan yihiin wadamada kale maxaa yeelay Iraq waxay xuduud la leeyihiin marka hatta haday wiilashaas inta u soo gudbaan maalin cad bay qabsan karaan gebigooda dhanba هاي حال مركا وحن مركو حالي وح يجو كيمد معها إسرائيل بواهر الدكتي ساس يال أيال عليها ديدا يالين هالدوانو تالا يولا صعود وين خارجينينا وين إذن أغنى هاي وحكا لإسكد دايا جوداري هابينك أكو سيحانيسان هوستي سايا بمبوين إيو بستولة دلوغي جرا مركا وحن إذن رانيالا إيران عدو كدكتا هدي أين نهاين والدين دليا يسيل عليها مركا نمكو حالي هاي نفتا لا يسكو كان يبان عليها وحكاك وانا ركض إن شاء الله تعالى وحكو سوكرا دينا عكلا أن أنو دينا عاي ودن لبنان يعني حالة وحكا صعوتا يعني دقال آن نوعي سوكلا العرق إلا بقول كنو أسكري وح كندو أيي حقاق الشفتة وحي ويرك وقادم كونفرت ودن لبنان لكن ciidankii markuu xarray markii hore ciidan dhul qabsanayo wax sameeynayo dhaqaaqayo hadafka saas ayuu ahaa maxaa dhacay markaa waxaas waxa ka duwan ay hadda soconayo waxa soconaya sida la leeyahay ciidankii ma dhaqaaqi karaan bal waxay marayaan ciidankii in iyagu ay shabaqyo isku ilaaliyaan oo ay shabaq kor isaga soo xiraan si ay u nooladaan مثلا muuqaal goordhow uu baahiyay telefishinka Al Jazeera qaybta af Carabiga waxa la arkayaa yani hatta xogaga reer Lebanon Xisbullah waxay bilaabeen inay baabuurta iska badhaafaan oo markan ay beegsadaan meesha ciidanka madaxdiisa fadhido meesha ciidanka laga hago waxaas inay daakum ka dhigaan waxa marka muuqaalka ku jira dhor diyaarado drones lagu kicinaya diyaarada drones 4 iyo 5 wax arkaysa gaadiidka qafilina waliba lagu tusaya way dhaafaysa waxa la tagayaa meeshii oo ciidanka ka buuxeen oo ay taliyaashu joogeen markaas diyaaradaha droneska iyo bambooyinka ay wadanta isku qarxiyaan ayaa waxa la leeyahay ciidanka halkaas wax dhintay iyo wax dhaawacmay bay noqdeen warbaahintood inta badan Haratis iyo Times of Israel iyo Yadi'ud Haranood iyo wararka khubarada iyo saraakiisha iyo generaalada gumaystuhu ay warinayaan in Lebanon imaanay marka aragtid adigoo dhan waa argagaxaysa marka ciidanka markuu waxa leeyahay walwal ruucbi wixii yani waxay marayaan ciidanku iska daa inay dhul hor la qabsadaan oo ay hor u socdaan waxay marayaan si ay u seexdaan in shabaqa isku soo wareejiyaan diyaarad isqarxinayso oo drones wadato xataa shabaq waxay ka qabato waxba kama qabato marka waxa la leeyahay ciidanka ee jabka iyo walwalka iyo tirabeel ayaa haysta la leeyahay marka qaar kamid ah saraakiishu waxay leeyihiin ciidanka dagaalka kuma sii jiri karaan war telefishinka Al Jazeera goordhow baahinaya waxa la leeyahay malaayiin Israa'iiliyiin ayaa dhulka hoostiisa u cararay maxaa yeelay laga soo bilaabo Qudus ilaa iyo jaliisha sare jaliisha hoose jaliisha dhexe waxaas oo dhan siriga dhawaaqay maxaa yeelay gantaalo ayaa lagu soo xarqiyay sida la leeyahay marka xogaga reer Lebanon marka diyaarado drones ay waxba daakum kaga dhigeen maalmahan gantaalada inta u yareysteen ayaa diyaarada ciidankii Lebanon soo galay waxa la leeyahay fahal tara lahu min baaqiya bay ku dhow yihiin marka waxa la leeyahay halkaasna jab culus ayaa ka soo gaaray xogaga maamulka gumaystaha Israa'iil waxa dhinaca kale haddeenu eegnana wadamada carabta mesela si isku duub khaliijka oo dhan waxa la leeyahay hadda xaalad aad serious ayay ku jiraan oo dawladda wadanka Mareykanka iyagu xaalkooda ma wanaagsan madaxweyne Donald Trump waxa uu si weyn uga carooday sida la leeyahay dhowr mowqif ama aragti oo uu ka helay Saudi Arabia iyo Imaaraat Saudi Arabia iyo Bahrain kuwaas oo ku saabsanaa iyo Oman oo diiday in marka hawadooda isticmaalaan arintaas cabashana ka muujiyay marka dabcan xiniye ay ku diidaan male laakiin waxay leeyihiin
warbal bedelkii lacagan u bixinaynaay imaaraadka iyo wadamada kale isticmaalo inaga naga daabayleen taa bedelkeeda laakiin lacag inaan u bixino ayaan diyaar u nahayo naga qalay laakiin awood ay amarka Mareykanka ku diidaan malaha waana been marka xogaa mararka qaar waa loo cusbiyeenaya laakiin ciidanka Ameerikaanka ugu badan waxa la leeyahay xabaa Sacuudiga iyo imaaraadka halkaas ay fadhiyaan dekedahaas ay fadhiyaan Iiraan si wanaagsan ayay u la socotaa marka madaxweynaha wadanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian goor oo hadlay waxa uu sheegay waxa uu Mareykanka ka fikirayo iyo cunaqabateyntii wax raqiis inay yihiin ayuu sheegay waxa uu sheegay shacabka wadanka Iiraan inay isla Mareykanka wax la mid ah uusan jibin karin ayuu sheegay marka hadii dawladda wadanka Mareykanka buuri marka ay ka waantoobi weydo cunaqabateynta iyo digdigta iyo culayska ay ku hayso shacabka wadanka Iiraan waxa uu sheegay iyagu inay tallaabo argoos ay qaadi doonaan weeraradan hadda gacanka Hormuz ilaa ibada Khaliijka ilaa ibada Carbeed iyo gacanka Cumaan sidaas la isugu waarsanaya ciidanka Mareykanka waa dhaqaaq laayihiin hatta maraakiibtoodii dagaal way carareen ilaa iyo waxay tageen badda casmeel ku sii dhow ayay tageen marka marka ka dambayso hawshaasi waa soo adkaanaysa wixii wararkan ku soo korwan idin la wadaagi doona hadii alla ka dhigo duqeymo ayaa ka soconaya magaalada Gaza dad ayaa ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen iyadoo Israa'iil ay qorsheynayso dib inay u bilowdo mar kale weerarkii magaalada Gaza ay ku qaaday marka waxaad moodaysaa xaaladda gobolka bariga dhexe dagaalku in imika uu bilow yahay Lebanon iyo Suuriya iyaguna waxay ka wada hadlayaan sidii amniga isaga kaashan lahaayeen hadda Suuriyana caasimada Dimashq baa waxa loo joogaa 50 kilomitir loo joogaa hadii laba ku rooyahay Lebanon gudaheeda lagu jira markaas ay amniga Israa'iil bay ka hadlayaan si Israa'iil u noolaato nabad looga helo maxaa nabad halaysa wadankaaga baa haafal haystaaba marka barnaamij kale oo dheer oo faahfaahina ayaa soo socda waxa ku eeganay aad baad u mahadsantihiin dib intaan u kulmo doon saaxiibadeeyo nabadgelyo